السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والكي فرحان إن شاء الله كسر هذا الشانل Kentucky New Americans Media. Please make sure وحسب مسا channel كان subscribe صار سياد برنامجنا aad ula socotid weekly-ga waxaan kaloo kusoo dareynaa barnaamijkan qeyb badan buu lahaan doonaa maanta ka hadlayo marka insha Allah ha laga faa'iideysto subscribe hal taabto waxaan sheegayaa shalay toole oo khabiis ah waxa waaye state government-ga oo White House-ka waxay soo saareen barnaamij la yiraahdo welcome cop. barnaamijkan dad badan si fiican u fahansaneen ayaa rabaa inaan u kala faahfaahiyo. marka barnaamijkan waa cusub yahay, Biden baa keenay, wuxuuna rabaa in dadka qaxootiga ah loo fududeeyo processkii resettlementiga. waxaana la rabaa in la keeno 5,000 oo qof sanadka qaybtiisa hore 6 bilood u horeyso, waxaana keeni doona 10,000 oo qof oo Amerikaan ah. waxaa loo baahan yahay oo keenta 5,000 oo qof oo qaxooti ah. marka waxaa la rabaa marka shuruudaha waxaa waaye sidii UN ay sheegtay 89 million people ayaa hadda adduunka qaxooti ku ah oo guryahoodii laga soo saaray oo meel ay maanta haysanin guri ah. marka waxaa la yiri si loogu fududeeyo hay'adaha dib u dejinta sida Catholic Charities, Kentucky Refugee, hay'adaha dib u dejinta oo dadka dejisa ma awoodaan in intaasoo qof oo la keeni rabo sanadkan in ay dib u dejin sameeyaan. marka ninka la yiraahdo Blinken, Secretary of State, wuxuu yiri arrinkan wuxuu u fududeynayaa dadka Mareykanka ah, shakhsiyiinta oo citizen-ka ah ama green card-ka haysto in ay dad keeni karaan, in dadka caawin karaan, adduunkan ay tusiyaan inuu Mareykanka dadkiisa dad fiican ay yihiin. marka waxaa la rabaa shuruudihiisa yaa loo baahan yahay, yaa programkan ka faa'iideysan karo. programka hadda cusub yahay, waxyaaba badan waa isbedeli doonaa, laakiin hadda information ku qoran oo website-ka state ku qoran waxaa weeye 5 qof ayaa isku imaanaysaan. 5 qof waxaa aruurinaysaa lacag 2,275. saa ogtihiin dadka marka waddanka la keenayo federaalka lacag ay ku bixisaa dib u dejintiisa, gurigiisa iyo 9 bil u horeyso. so marka 2,275 qof iska aruurinayso waxay noqonayaan plan oo dib u dejin ah. qofkan imaanayo 3 bilood u horeyso waxaa laga rabaa meeshu jiifanayo inaad u diyaarisid, cuntadiisa inaad u diyaarisid, sharciyada u diyaarisid, gacan qabatida la rabaa. marka saas marka way u fududaanaysaa hay'adaha oo NGO-ga non-profit-ka ah oo shaqadan qabta inay dib u dejin sameeyaan. marka programkan wuxuu ka jiraa 2 wadan hadda, wuxuu ka jiraa Canada iyo Sweden. so Mareykanna marka waa bilaabeen 5 bis waaye application waa furan yahay. lama oga hataa in Republicanka ay diidi karaan. maalin dhaweed iskuulka studentiga ardayda waxaa la dhahay waa laga caafinaya lacagtii application-kaas dadka buuxiyaan ku jiray. marka Republicanka waxay saareen judge ayaa arrintii howlgeliyay. so arrintan howlgelin karaa ma aha wax guarantee ah waddankan, laakiinse waxaa ognahay programkan inuu aad u fiican yahay, laakiin dadku anfacaya. marka dadku anfacaya waxaa waa hadda inta ognahay dadka dib u dejinta ee UN u siisay oo ka haysta resettlement approval waddanka Mareykanka. waxay u badan yihiin dadkan, marka aniga aan fiiriyay qoraalka, waxay u badan yihiin dad oo adhaab jooga ama Kakuma jooga, dadka qaxootiga jooga, inuu qaxootiga joogaan oo ka haysta ogolaasho dib u dejin ah waddanka Mareykanka. marka dadkaas waa dadka oo hadda u furiyaa, waa dadka la keeni doona, waa la bedeli doonaa, halkaan insha Allah ka soo gelin doona. laakiin hadda wuxuu furiyaa dadka already approval ka haysto. so marka aan 5 qof application buuxiyaan, lacagtii ay dhahaan diyaar waaye, plankiina ay diyaariyaan, dowladda Mareykanka ah Facebook koowaad iyaga ku dooraya, ka labaadna adiga dooranaya marka qofka. ma fahamtay? so faahfaahin badan insha Allah ka soo bixin doonaa, laakiin waa barnaamij dadka u fududeyn doono. waana first time waddanka ka dhacay. 1980 ayaa ugu dambeysay programadan oo kale in hataa la soo saaro miiska. laakiinse waxaa ognahay Secretary of State Blinken arrintan aad ugu faraxsan yahay. UN-tana way soo dhaweysay arrintan, laakiin waxaa idin leeyahay faahfaahiyo badan iyo barnaamijka kooban. laayarada waxaa jiro oo aad isku fiicanaa nima la yiraaho, ani iyada ayaa weli waxaan ku jirnaa
more information. So haddaa su-aal ka qabta programkan qaxootiga la keenayo commentiga oo YouTube-kan kusoo qor, su-aalahaasa aruurinaynaa insha Allah weeka dambe ama maalmaha soo socdo iyadoo kooban ayaan jawaabaha ayaan ka bixinaynaa. wixii soo kordhana insha Allah halkaan kala socon doontaa. Assalaamu